العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo dhameynay shalay kitaab الطهارة ayaan soo dhamaaday oo baab الحيض ama kitaab الحيض in ku soo gabagabeynay oo طهارada ugu dambeeyay masaa'isha ugu muhiimsanayd ee shalay soo qaadanay waxa kamid ahayd dhiiga umusha iyo dhiiga caadadu maxay iska waafaqsan yihiin maxay isu keenaan naam gabadha caadada le waxay ka tegayso ayay umushuna ka tegaysa dhiiga umusha muxuu yahay وديق الصباح بعد الولادة أيو كبلاب ما طيب مددي سوية ووحية مدد أبو بضل لحدا عند من عند الشافعي طيب قول كلام أفرتن باقو بدن طيب كيف لا وضع حق بدن أفرتني لحد يا لماذا طيب أدلة بدن بينه وشين إنه حق بدن هذه قبل يديك وكسر عضو كنتن أما اللحدا أما التضباط المددي ولا فوق بدنيت ديك حكم كيس محنا غني ودم فساد ودم فساد هي فرت كبر على قول الشافعي أنا ويحل لحد كبر نعم بدنا بك الصون نغضون بمسكحة كسيها ما أنت هذا الله هنا والراجع ما أنت بنا هداني دي ويدي وستين بدلدي وأكثره 60 وطبيعي وي كتاب الصلاة يا شيخنا لا أمان الله مصباحه دي أي لهذين ولح أسبوع لحظة أسبوع حين أنا سافرتني لا أمان هذا كلام هذا ما اللي جي أبي وبعدي ولدن ولدت الولح أسبوع صدق أسبوع حين قنيسة ما يتسوى إسكت تقريبيه وأيه وحي خلاصة أن قنيسة حتى لا وضع عشقيل بيسجد دورية لا وضع عشق لكن مهمته لحدا كان مرنا بإنا نجاري يا 50 كاس أيام ماشى كالصباح يسديت هاي لبيا فرتن عشاء أما فرتن عشاء وأسقى قضية دوي لكن كعايشة كانوا بكل بحث قلبو جاري وأهل أسبوع وبضنان ولبنا وبضنان كتاب الصلاة صلاة دايو كتابية وتين هرأسو تلماني صلاة إنay tahay arkaanta islaamka shanta kalabaad inuu yahay kuwa amaliga ee la sameynayana ka koowaad inuu yahay sidaas loogu bilaabay waxa weeye kutubta fiqiga loogu bilaabay oo kitaabkana qaabkoodii uu u socdo laakiin salaadu maadaama ay u baahan tahay tahaara ay u baahan tahay ayaa waxa laga hadlay tahaaradii ba laga soo hadlay kadibna maqsuudkii oo salaadiya ayaa la galay salaadu saynu ogsoonahay luqa ahaan waa duco wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum ay wadcu lahum ina ducaa'aka sakanun lahum allahuma salli cala ali abi awfa وبمعنى الدعاء أصل كيد حق الشرعي أهان الصلاة وحل إلى هذا نصوص كتابك يا السنة هذه الصلاة لغو استعماله وحلوغة شيدا عبادة ذات أقوال وأفعال عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم كاسا صلاة لنا يعني أقوال يا أفعال ولبنا معلومة والإسلية قانو أي وحوية كوبنتها صلاة وعبادة أدوين حيابا أهمية دي كتصية يا إسلام في بوسكا أردقى وحكم ذا وعبادة لقصة واجبية
waxa weeye fi samaawaati alcula yani zakada iyo xajka iyo cibaadaadka kale iyadoo nabigu calayhi salaatu wasalaam dhulka uu joogo ayaa wujuubkeedu soo degay laakiin iyada waxaa lagu waajibiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo samaawaadka jira habeenkii la dheelmiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam jazaak allah khayr ayaa nabiga lagu waajibiyey idan ahmiyadda ay leedahay bay ku tusaysa salaadu ay leedahay waxaa kaloo ku tusaysa arkaanta haddii aynu eegno waajibka ah waa sanawi ama waa cumuri arkaanta islaamka haddaynu eegno oo xajku inta la nool yahay hal mar buu waajib kugu yahay zakaduna waa sanadkii hal mar soomkuna waa sanadkii hal mar salaadana bilo lagama dhigin sanadlana lagama dhigin yowmi baa laga dhigay markaasaa welibana yowmigii 5 jeer la soo celceliyey waxay ku tusaysaa qiimaha iyo ahmiyadda ay leedahay ayay waxa weeye ku tusaysaa fadligeeduna aad buu u badan yahay sida allah uu tilmaamay inna salaata tanha can alfaxshaa'i walmunkar wala dikrullahi akbar salaadu qiimaha waxyaabaha ay ku yeelatay waxaa ka mid ah waxaa ku sugan horta dadka inay xumaanta u diido tanha can alfaxshaa'i walmunkar qofka muxaafidka ku ah salaad ee khushuucdeeda u ilaaliya qofka noocaasi waxa weeye xumaano badan bay u diidaysaa taasi waa ku sugan tahay waa laga faa'iideeyay yawmiyan haddii salaada la ilaaliyo talabaad ay ku sugan waxay tahay salaada waxa ku sugan xus ilaahay la xusayo ilaahayna waxa uu yiri wala dikrullahi akbar labada shay ee ku sugan salaad inay xumaan ku diido ya ilaahay in lagu xuso waxa si weyn macnaha ilaahay in lagu xuso xuska alla si weyn sheekh waxa uu yiri baabul mawaqit kitaabu salaa baabul mawaqit xilliyada salaadu ay leedahay baabkeeda مواقيت وجمع ميقات ميقات كنا وحل قوي ولوغا جيدو الزمن المحدد لأداء الصلاة فيه ومدد اللو على مديي اللو حديي صلاة إلا تكادو أي اللوغا جيدا وقت يد الصلاة هنا صلاة هو عشان سيدنا وكسونا وقت يدو دون وعشان هدي الله جمعين والله يسكو علي وشان وقت وشان تصالات مد والبا وقت لو شيغايا او بلابمايو او dhamaanayo hadii safar la yahay ama qofku macduur yahayna ama roob u daayo magaaladii la joogay waxay la midana shantii salaadood waqtiyadoodu saddex bay isugu noqonayaan oo salaadii subax waqti bay yeelanaysaa dhuhr iyo casrna isku waqti bay yeelanayaan maghrib iyo cishana isku hal waqti bay yeelanayaan saddex waqti ayay waxa weeye isugu noqonayaan waqtiga salaaduna wuxuu kamid yahay shuruuda salaada ayuu kamid yahay oo salaada waqtigeedu hadaanu soo galin ka ansixi maayo laakiin shuruudaha salaadu waa badan sida la inoo tilmaami doono baabu shuruud as-salaa waa inoo soo socda laakiin mawaaqiitu salaa oo kamid ah waxa loogu bilaabay salaad ashyaa badan baa waqtigu kulansaday ashyaadana waxa kamid ah horta salaadu inaanay waajibayn hadii waqtigeedu aanu soo galin يعني صلاة واجب نمديدو waxay ku imanaysaa waqtigeedu inuu soo galo waqtigeedu hadaanu soo galin waajib kuguma waajibin oo qofka hadda salaada subaxina la tukaday ee inta aan dhuhrka la gaarin tiisu ay u timi ee waqtigaaba aan gaarin salaada dhuhr qad'an waajib kuma inta aan waqtiga la gaarinna waxa weeye waajib kuma salaadaasi laakiin markay soo gasho waqtigeedu soo galo ayaa daliilkii ku waajibinayay uu fuulaya ka hor waxa laga yaabaa inuu ka dhinto si gudaha u aaminsanaada inay waajib ku tahay idan sababul wujubku ama salawaadku inay nagu waajibaan waxa sabab oo ah salaad walba waqtigeedu inuu soo galo aqimi salata liduluki shams sida allah tilmaamay idan xilliyada cadeyntooda axaadiisi tilmaamaysa inuu halkan insha Allah ta'ala maanta ku qaadanayna وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وحول النبي وقت الظهر ظهر كحل جيس إذا زالت الشمس وهديق الرحد أي زوشو وبمعنى برتمها أي كإيلة أي كالليحة
وكان هذا ظل الرجل نك هركيس كطوله درركيس أو كلا النغض أما تشوكيس أو كلا ما لم يحضر انت آني إيمان العصر صلاة عصر انت آني إيمان ووقت العصر عصر كوقته سنة ما لم تصفر الشمس وانت آني قرحض عولان أما آني عسان أما عسوسان النقل ووقت صلاة المغرب صلاة المغرب حل جيدنا ما لم يغب الشفق عسانك وانت آن التجمع ووقت صلاة العشاء عشاها حلقي سنة إلى نصف الليل أبين كبرتمه سويه الأوسط دحدحات كاها بمعنى هبين كاللبدي سقيبات دحدحات سني ووقت صلاة الصبح صلاة الصبح اللي دونه من طلوع الفجر واقو مركب ضلاعه وكالصادقة مكلبات ويان ما لم تطلع الشمس حلقا سكبل أميا ما لم تطلع الشمس انت عضعد أنا الصبحين رواه مسلم حديث هو السغين وإمام مسلم باصو صاري وله وحا أسغ ناضي إمام مسلم أي اللي مسلم إلا مسلم بالا صو شيء من حديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي حديث كيسي في العصر يعني في شأن أو في وقت صلاة العصر صلاة العصر إسقى وقت إذا كهالله حديث كاسي والشمس وحدت كذي نبي صلاة العصر بتكذي والحال الشمس قرحدنا أيتهي بيضاء مدعط نقية صافي أيتهي وبمعنى عدان كاسي وح عسوسي أنا يوهلني وأنا عصان وح عصان أنا يضمها يضوى يدي وي لكن الشعار دولك كل عيسى أي اسبدل يعصاني فالله ومن حديث أبي موسى يعني وحكى له مسلم أسق ناضي وله أي لمسلم وحى أسق ناضي من حديث أبي موسى والشمس أي والحال الشمس صلاة عصر بوت كذي يضع عد مرتفعة أي تهي متسر ريسة أو حوية كعسن حافظكم هل كان وحينا قلت المام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكمد أحاديث أصل كوأ إن لعديه صلواتك حلية أي صقلان حلية أي بحية حديثكم مسائل بدن بو إنو تلمام لكن أنت إنان أقرين وحنو تلمام إنان نكتو كسوغا حديثك تخريج كيس سيد الله شيئا حديثك وحا صار يا إمام مسلم حديثك هدو صاره وسغن هي وصحيح لكن إمام مسلم حديث كما كسو ساري صحيح عيسى وحو شيغay اسانيد بدن او isugu biyo shubanaysa قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه اسانيد داس قتادة عن أبي أيوب عن ابن عمرو بن العاص يعني قتادة ويحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قتادة عن أبي أيوب السختياني عن عبد الله بن عمرو بن العاص السانيد بدن وكلا دوان بو أشهد فلان عن قتادة بمثله بنحوه بمثله وأسانيد بدن وسوع العليني الإمام مسلم مركو أسانيد دار دميي أو كلا دودوي أو فافاهيي الدمان تدو إسنادين يا حديث كان عبد الله بن عمرو بن العاص هذا هينو يا الفاضيس وصفي عن سوسو هبيي أيو وحو شيغي سند كلا أو كسو ختمي سند كاسنا وحو كغبغبيي هضل وليه يحيى بن أبي كثير اليمامي وأئمة محدثين تكملا وإمام مسلم ليه حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن يحيى بن أبي كثير أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم علمي قال لكم أو ذل لكم هلو جدنا صنية ويسكننا صنية علمي لكم هل علماء وحي إلى هذين هذا النوع عاصر يا حديث كان عبد الله بن عمرو أكاه الله صلاة حلية إذا سيدي سوق بني حاجة يسكسو قالن بالليس ويدي جوابتنا وحي نقطي أسانيد دا بدنا والتلمامي
يا الفاظ بدنا وسل حديث كان أجمعيه يقابك وهبيه وأتحي ووح جهدي بدني أصاب قليل إمام مسلم سنوات بدن أو حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الله يا عالم كيسجد شيء معلومات كي وصاح السليي وانتو هبيي خلاصة في عنه وحوية كاسي علمي النوع عاصنا إمام مسلم وحا وكلية يسهل لغو مهره هذا الفراش كاغا كوشي فامن الصنايا أو قبو السنة يكوهي لميس تنبيه النوع عاصو الدونين وكوكو تنبيهي ونكتبه نوي مركا حلي قد حانتا كلا هذا الله سوك الله أيو يميلها فوق لغا سو صعده هدي الله ايغا امام مسلم تعبك ku dhacay wax la sheega ma waayo xilligaas de gawaadina lama haysan awr baa la fuulay ama waaba la lugaynay caalamka oo dhanna waa isaga lugaynay oo Ruushya hadda meelaha la yiraahdo iyo Afghanistan iyo meelaha la midka ah iyo Iran intaas oo xuduud wadala isku dhow wadamadii ku yaalay iyo Makka iyo Madiina iyo Sham iyo Masar intaas waxa weeye ama awr la fuulay ama waxa weeye la lugaynay caalamka badankiisa weey oo laga yaabo sheekh intuu xadiis ka maqlo inuu wadan kale ugu tagay xadiiska ka soo qaadanay idan xadiiska halka inoogu soo koobay waxa laga yaabaa 5 sano ama 6 sano inay ku qaadatay salaada xilliyadeeda xadiiska ku timi inay ku qaadatay kadibna la yustataa'u al-ilm bi rahati al-jism inaguna hadda inaynu xaafad magaalada ka soo lugayno qabowgaas laga yaabaa dad badan inay culays ku tahay oo inta uu haysto jihad weey uu haysto xilligan hadii loo eego waa jihad weey ilaahay nagu soo laakiin waxa weeye waxaad xasuusataa culimadan aynu ka hadlayno axaadiistan ka soo shaqaysay ku soo tacabtay waxa weeye juhdiga iyo dhibka ay u soo mareen in kunna lanarhalu al-ayyama wal-layali fi talab al-hadith al-wahid سعيد بن المسيب وكيله مالما إيا هبينان وإسعونينا هل حديث وكلي إنه إلهي مهدي سديد حديث أما 8 حديث يا معنوه دي يا إنه صحيح يا إنه ضعيف أي إنه هل فردي يا هل دقيقة إنه قاضنين ونعم إلهي لقوم هذه إلهي سبحانه وتعالى لقوم هذا عليه ما هذا علي انتنا وحكم إذا إلا الضبطي ولا إتقانيه ولا مراجعيه ولا حفظيه أو حويه أن نغسل له إلا وين وهي ما حفظ سريعا نسي سريعا بعلماء الله دبك اي كانت وحي دغدغ لو هلو اما صفه ضد لو هلو صفه ضد بو بخا صفه ضد بو بخي حديثك وحو ينو تلمام هدينو حقي معناه دب ugu noqodo saddexda xadiis waa sahih حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فافاسن وحو ينو تلمام xilliyada salaadu ay leedahay buu inoo tilmaam waxa lagu bilaabay salaada dhuhur baa lagu tilmaam lagu bilaab salaada xilligeedu wuxuu soo galay markay cadceedu ka zuusho xagga galbeedka uga iilato bartama yani ida zalat ash-shamsu an kabidi as-sama samada beerkeeda ama bartamaheeda markay ka zuusho ayaa waqtiga salaada dhuhur u bilaabmaya wana waqti lagu ijmaacay أحاديث بدنا وتلمامس وحنا ضمانة يا وقت جاس شيء والبحر كيس مركو لكارو أما قف هالنقض أما أقول هالنقض أما اسم هالنقض شيء والبحر كيس مركو لمد نقضه أي وقت جاس ضمانة وقت جاس بلو يضماننا وعدي ظل الرجل يعني ظل كل شيء بمعنه داعي نك جاركم معه شيء كاستهر كيسو أول لكارو أي وقت جاس بحي وحكوا حاجة صلاة عصر بلو جيد لما شيجين وهي بلو جيد وحكب لما يا صلاة دي عصر مركي أي دماتي صلاة دي ظهر مركي دماتي أي كبل لما إذا بلو جيد ولا فهمي وقف كتشوجيس مركا أقول لك هذا هركيس لك هذا أي كبل لما يا إلا لقى جاريو ما لم تصفر الشمس قرحته إنتانا يحولان يعني markay xasuus noqoto ee gabaldhucu uu soo dhawaado ayaa kuleelkeeduna khafiifaya midabkeeduna isbedelay oo cadaankii badnaa uu ka baabay xilliga noocaas ayuu dhamaanay ma lam tasfarra shamsu culimadu waxay is weydiiyeen salaada dhuhur iyo casr ma isa soo galay waayo
casarku xilligu bilaabmayo iyo duhurku xilligu dhammaanaya labaduba isku hal xilli baa loo sheegay culimada qaar waxay yidhaahdeen oo xilli bay iska soo gelayaan oo 4 ragcadood oo duhurna ay bannaan tahay in la tukado oo awalu waqtiha ay noqonayso aakhiru waqtiha duhurka xilligiisii ugu dambeysay ay noqonayso casarkana waqtigiisii ugu horeeyay ay noqonayso culimada qaar saasay yidhaahdeen qolo kalena waxay yidhaahdeen maya waqti uma dhaxeeyo duhurka halka uu ku dhammaado yani markuu joog gaadho halka uu gaadho ee uu dhammaado xilligaas la gaadho ayaa waxa weeye salaadii duhur dhammaanaysa halkaana waxaa ka bilaabmaya salaadii casar ismana soo galayaan oo isma soo gaadhayaan sidaasaana xoog badan waayo asalku waxa uu yahay salaad walba inay salaada kale xilligeedu uu ka soocan oo machuud maaha ma wax la yaqaan maaha salaad laba salaadood oo salawaadka kamida shanta in la helayo waqti labaduba ay adaa noqonayaan oo ku ansaxayaan mid machuuda maaha laakiin waxaan uga jeednaa inaan tilmaano sida waqtigoodu isugu dhow yahay dhamaadka duhurka iyo bilowga casarka waxa la tilmaamay casarka dhamaadkiisa ayaa la tilmaamay casarka dhamaadkiisa waxa lagu tilmaamay oo nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ma lam tasfarra ash-shamsu inta aanay cawlaan axaadiid kalena waxaynu ka faa'iideysanaynaa salaada casar waqtigeedu inuu ku dhammaanayo qofka harkiisu inuu gaadho labadii inuu gaadho isaga labadii wa kaana dhillu ar-rajuli kamithlayhi shayga harkiisu laba joog inuu gaadho salaada casar inay ku dhammaanayso oo haddii ay ka badato waxa weeye salaada waqtigeedu uu baxay harku laba joog inuu noqdo ama shayga har kale labadii inuu noqdo iyo in la yiraahdo inta aanay casaan ama aanay cawlaan labada waqti keeba badan waxa badan intaanay casaan badan intaanay casaan ayaa waxa weeye badan xadiidka tilmaamaya laba joog buu gaaraya wuxuu ku yimi sunanta ayuu ku yimi waa xadiidkii tilmaamayay nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu tujiyay jibriil inuu tujiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaanu tujiyay maalintii salaada waxa weeye nabiga lagu waajibiyay waa habeenkii la dheelmiyay maalinkii ku xigay ayaa waxa soo dagay jibriil calayhi salaam nabiga ayuu tujiyay salawaadkii maalintaas salaad walba xilligii ay ka bilaabmaysay ayuu ku tujiyay maalintii ku xigtayna xilligii ay dhammaanaysay buu shantii salaadood tujiyay idan xadiidka waxa laga fahmaya inuu yahay maka xilligii maka ama sanadkii shanaad ee bictada in waxa weeye xilligii salaada la waajibiyay in xilliga noocaas la jideeyay oo jibriil maalintii labaad wuxuu tujiyay salaadii casar nabiga maalintii labaad ee uu tilmaamay waqtiga dhamaadkiisa ila xadiidka waxa ugu dambeysay alwaqtu ma bayna haday maalintii koowaad xilli buu tujiyay waa bilow maalintii labaadna dhamaadku tujiyay kadibna waxa uu ku yiri alwaqtu ma bayna haday waqtiga salaadu labadaas u dhaxeeya oo laga fahmayo maalinta labaad xilliga uu tujiyaa inay tahay xilliga ay dhamaanaysay idan xadiidkaasi waa sugan yahay oo saxiix waxaanu tilmaamay salaada casar waqtigeedu inuu dhammaanayo markuu harku noqday laba joog shayga labadii wuxuu ka bilaabmayay salaada casar waxay ka bilaabmaysay mithlahu markuu isaga la mid yahay taa haddii la laabana waa waqtigii salaada casar u dhammaanayay xadiidkaasi saasuu tilmaamay laakiin labada xadiidkee baa xoog badan waxaan leenahay xadiidkan aynu haynaa xoog badan wuxuu ku xoog badan yahay isagaa sixo badan oo muslim buu ku sugan yahay ka kalena sunanta ayuu ku sugan yahay taa waa ku xoog badan yahay ta labaad uu ku xoog badan yahay waxay tahay xadiidkaasi waa mutaqadim oo waa xilligii salaada la waajibiyey waa xilligii maka xadiidkanina waa madiina oo salawaad badan buu ka dambeeyey kanaa dambeeyey idan kanaa xoog badan ta saddexaad xadiidkaasi waa ficil waayo nabigu ficil ahaan buu u sameeyey xadiidkanina waa qowl
والقول أبلغ من الفعل حق جدينتنا قولك أيا حق بدن كان قول والنبي هذا البكوع عدين وقتي هذا حل جيد بلو يدمر لبضبا إذا وحنا لنا صلاة عصر حل جيدو وحاو بحيا انت آني وحوي عضعدو آني عسان oo aanay midabkeedu isbedelin waqtiga noocaas ay u dhamaanayo waana waqti ka badan sida la qiyaasayo harku inuu laba joog noqdo waa mid ka badan weey culimada qaarna waxay ba ku qiyaaseen 15 daqiiqo ama 20 daqiiqo ama 25 daqiiqo ugu badnaan inta aanu gabal ku dhicin waxa weeye ka hor يعني xilliga casuustu ay bilaamayso baa laga qaaday xilliga noocaasina ugu badnaa waa 20 daqiiqo weeye inta cadceedu aanay dhicin meelahaas idan wixii ka horeeya waa waqti salaadii casr la tukanayo ma lam tasfarra ash-shamsu bayso gudagalaysa salaada casrna xilligeedu waa kaas salaada maghrib nabigu waa sheegay alayhi salatu wasalaam wuxuu ka bilaabmaya cadceedu markay dhacdo wallahu sada inay dhacdo wuxuuna dhamaanaya sida saxiixa ah marka casaanka ka dambeeya ghurubu shamsiga casaanka ka dambeeya ee dhinaca galbeedka ku sii hada ee ah calaamadihii ka haday qoraxdii dhacday ee iftiinkeeda casaankaasi markuu dhamaado ee uu madoobaado ayaa waqtigii salaada maghribna uu dhamaanaya waana sida xooga badan xadiidkanina waa inoo cadeeyay ma lam yaghib ash-shafaqu shafaquna waa casaankaas علماء كم معنيين صحابتي بكم معنيين تابعينتنا وكم معنيين أئمة اللغة وكم معنيين شفقوا إنه يهي عسانك قبل لعك الضمبية إذا عسانك أنت وتشوغو وحوي حل قاسنا وباقي وحنا لقو قياسا ساعد يا ربع مالها صار لقو قياسا أما ساعد با هدي له احتياط ومدة ساعة إذا لقبل أبيه لحظة وقبل كدعي إلا أكزول يا عسان كاسي وكبابا أيو ومدة ساعات كده ودو يعني ساعات دا صوردن صلاة المغرب وقت جدي وتشوغا عسان كاسي هدي ودمادنا وحوي صلاة دا سوى بحر وحنا سوق ليا صلاة عشاء سوق ليس وقت عشاء هنا وحكب الأم يا إصلاح اللقاس من مغيب الشفق مركع عسان كان لوايو دولكم مجدي وضع النقضة أيا وحب الأم يا وحوي صلاة عشاء حلقة باب الأمي وحنا اللي قدام صلاة عشاء إلى نصف الليل الأوسط هبينك برتميز أولبنا أوسط كأ أوسط واسكتأكيد وهي نصف الليل بين كفى من هبينك برتميز الأوسطنا وحلو استعمالي هبينك اللبدي ساقيبات وقيبته رأي قيبته الضمباء أيا وحوي أيو نحوية أو وسطية حلق النوع عسى يردمان يا سيدة حديث كان ينوت المامي حديث كان إمام مسلم لكن حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام جبريل كنت تشيي صلاة حلية دي يسقوا حوت المامي هبينكي كوات أما صلاة دي عشاء كوات إنه جبريل عليه السلام نبي تشيي صلاة عشاء بلا وغير حلق عسانكي او قرصومي او تجيي دمادكينا وحو تجيي ثلث الليل هبينك marka saddex qaybood loo qaybiyo qaybtiisa koowaad markii ay dhamaatay habeenka saddex qaybood inta loo qaybiyay qaybtiisa koowaad markay dhamaatay buu tujiyay oo saynu hadda soo tilmaamayna laga fahmayo maadaama nabigu alayhi salatu wasalaam alwaqtu ma bayna haday waqtigu labadan u dhaxeeya laga fahmayo waqtiga cishaha ugu dambeeya inuu yahay thuluthul layl habeenka saddex daloolkiisa koowaad oo bartamaha dil la gaaro ay noqonayso salaada xilligeedii inuu baxay halkaasna waa macna labaad weey ahadiis qaar waxa laga faa'iideysanaya nabigu inuu yiri alayhi salatu wasalaam laysa fi an-nawm tafriit inma at-tafriit ala man lam yusalli as-salata hatta yaji'a waqt al-ukhra يعني هابينك seexashada la seexanaya gaabis kuma sugna ee qofka gaabiye waa qofka aan tukan
ilaa salaadii kale xilligeedu uu ka soo galay salaada cishe salaada ku xigta waa salaada subax salaada subaxna sida inoo iman doonta xilligeedu wuxuu soo galay waagu markuu dilaaco ee uu bariyo xadiidkaasna culimada qaar baa daliishaday idan saddex xadiid baynu haynaa xadiis tilmaamaya cishaha xilligiisu inuu ku dhammaanayo bartamaha waa xadiidkan muslim ee hadda aynu hayno xadiidka labaad waa ka sunanta ku yimi waa tujintii jibriil calayhi salaam waa uluth lleyl xadiidka saddexaadna waa ka tilmaamaya qofku inaanu gaabis samayn ee ka gaabiska sameeyey uu yahay ka salaadii aan tukan ilaa salaadii kale ay ka soo gashay kuwaasina waxay leeyihiin salaada cishe gaabiskeedu wuxuu imanaya oo wakhtigeedu baxaya haddii salaada subax ay soo gasho idan qoladaasna waxay noqonaysaa salaada cishe inay baxayso qabla tuluuci alfajri waagu intaanu baryin habeenkoo dhan baa la tukanaya ayaa qoladaana ka soo baxay idan saddexdaa qowlba masalada waa ku sugan yihiin laakiin qowlka xooga badani waxa uu yahay xadiidkan aynu hayno ee muslim ku sugan waayo isagaa sixo badan isagaana dambeeyey sida aynu tilmaannay axaadiid badan oo kalena waa xoojinaysa oo nisfuleylka ayay ku timi wuxuuna tilmaamayaa ziyaado oo xadiidka tilmaamaya ululeylka cidhiidhi baa ku sugan kan kalena ziyaada ku sugan maadaama ziyaadada uu tilmaamaya ama wakhtiga badan ee uu tilmaamaya ay sugnaatay isaga ayaa la qaadanaya ama xadiidkan kale tilmaamaya qofku gaabis ma samayn sida inoo iman doonta waxaa lagu qaadayaa in laysa fi nawmi tafriid baa xadiidku ku bilaabmay seexashada la seexday gaabis kuma sugna idan qofka macduurka ah baa lagu qaadaya wakhtigiisu inuu baaqi yahay ilaa salaada kale ay ka soo galayso idan wakhtigaasi waxaa la yidhaahdaa waqtu daruura baa la yidhahda waa wakhtiga lagu khasban yahay gabadhii caadadu uu ka go'ay kowda habeennimo ama labada habeennimo dhiiggii caadadu hadduu ka go'o wakhtigii salaadu uu joogay waxaynu ogsoonnahay salaaddu inay mamnuuc ka tahay oo aanay u bannaanayn laakiin salaadii subax haddii aan la gaadhin waxaa lagu waajibinaya salaadii cishe waajib bay ku tahay maqhribkoo la wakhti ahna xaaladaha noocaasa isaguna waajib buu ku yahay siday fuqahadu yidhahdaan idan wakhtigaasi waa wakhtiga qofkii macduurka ahaa uu wakhti u yahay qofkii macduurka ahaa uu wakhti u yahay oo macnaha ka soo baxaya uu yahay qofkii hurdadu ay la tagtay ama seexday ama xanuunsanayay ee xilliga noocaasa tukaday waa habeenka bartamihiisa wixii ka dambeeyey iyo inta aanay waagu baryin qofka noocaasa salaada uu tukade macduurka uu ku yahay qada maahe waa adaawi macnahaasa ka soo baxay qof salaadii qalleeyeyma ee waa qof salaada xilligeedii tukaday laakiin xilligaasi wuxuu xilli u yahay kii dantu ay ku khasbaysay ee u baahnaa ee cid walba maaha ama ka kale isaga waxa weeye gaabis ayay xaqiisa ku tahay waxa ugu dambeeya salaada subax xilligeeduna wuxuu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waa min tuluuci alfajri maa lam tatluci shamsu waa waagu markuu bariyo ilaa inta ay cadceedu ka soo baxayso intaasoo dhanina waa waqti la tukado salaadii subax qoraxdu hadday soo baxdana salaada xilligeedu waa baxa وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه حديث مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص بصيدا إنه تلمامي لكن لبدا اللفظي أما لبدا الجملة دود إلا قصوا كالقاتين لبدا حديث كصابصا صلاة عصر وحديث كبريدة يا حديث كأبي موسى ما حيت المامي وحيت المامي حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى maadaamuu inoo sheegay xadiidka cabdulaahi bni camrin ee baabka asalka u ah salaada casar xilligeedu inuu yahay inta aanay casaan ee gabaldhucu aanu soo dhowaan inay xilli u tahay ayaa laga yaabaa in la isweydiiyo ma xilligaa ugu dambeeya nabigu tukanaya calayhi salaatu wasalaam mise nabigu xilli ka horeeya ayuu tukanay taasuu xaafidku kuu caddeeyey wuxuu tilmaamay ashamsu baydaau naqiy qoraxdii oo cad oo walibana saafiya
oo bimacnaa cawlaantii aan la gaadhin buu nabigu tukanayay washamsu murtaficana waa lamid iyaduna macnataa lamida ayay waxa weeye tilmaamaysa axaadiistii xoojinaysaana way inoo iman doontaa insha allahu tacaala waxaana ka mid ah axaadiistaas xadiidkii anas ibnu malik ee uu lahaa nabigaanu la tukanaynay salaada casar kadibna waxaanu aadaynay fayadhabu daahibu ilaa quba ninbaa wuxuu aadayaa meesha quba la yidhaahdo ayuu aadaya wuxuuna u tagayaa fayaatiihim washamsu murtafica wuxuu u tagayaa iyadoo cadceedu ay sarrayso oo meel sare ay joogto quba meesha la yidhaahdana iyo masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii la tukaday waxaa u dhaxaysa 6 kilomitir wax ku dhowdhow 5 ilaa 6 ayaa u dhaxay masaafada loo soconayana waynu qiyaasay saacadba waa saacad ku dhawaad wey yani bacda saaca ayaa cadceedii ay tahay mid murtafica oo aad u sarraysa oo kulkeedii iyo iftiinkeediiba uu waxa weeye halkeedii marka waxaa halka laga qaadanaya nabiga caadadiisu inay ahayd inuu dadajiyo ee lama sugayn waqtiga ugu dambeeya nabigu lama sugayn taas uu tilmaamay riwaayaadka u keenay وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال وحول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وآه يصلي مت كذا العصر صلاة عصر بتكني ثم يرجع ونقني أحدنا متكيو إلى رحله أقل كيسا يكون نقني مشو دقيه وفي أقصى المدينة وحوي مدينة عرف كيدا كويا لا مال كيدا وضمبيه وقبا يا عوالي يا ميرها الله متكابا حلقا عرفها والحال الشمس قرحدنا حية يضو أي نوشهي ومعنيها دين تلمامي وكان واها نبي يستحب متش على إستان يؤخر أين دبلغ من العشاء صلاة عشاء وكان واها النبي يكره مديدا النوم سيحش قبلها صلاة عشاء ارتد لسيحنيه يو الحديث الشيكاي لبسني بعدها عشاء الدبدي لشيكايو وكان واها النبي ينفتل متكبح من صلاة الغداة صلاة الصبح حين يعرف حلق أقراني الرجل ننكو جليسه كالله فردية هبل يهبل وكال السوعي ويقرأ النبي وكنت شيني وكو آخرين صلاة الصبح بالستين لحدا آيادات إلى 100 إلا بقول آيادات لقاري متفق عليه وعندهما بخاري مسلم أكتود وحاهاتي من حديث جابر بن عبد الله وحاولي والعشاء صلاة عشنا أحيانا أي يعجل أحيانا حل وسود الدجيني وأحيانا أي ويؤخر أحيانا حل كلنا وادبلغي إذا رآهم هدو أرك النبي أحيانا وأحيانا بلا سي معنيني حل جيبو سود الدجيني إذا رآهم هدو أرك اجتمعوا إني كلمة أو جمعي ودنيا عجل وسود الدجيني النبي صلاة عشي وإذا رآهم هدو أرك أبطأوا إني دبلعين أخر ودبلغي صلاة عشاء والصبح أي ويصلي الصبح صلاة الصبح نبي واتكني كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وآه يصليها مت كذا صبحي بغلس مجدي وكتكني النبي عليه الصلاة والسلام الصبح وحل نسبية من باب الاشتغال وهو حوي فعل كي يصلي الضمبية ضميرك وقاضنا أيه أيام مشغولية فعل كالنوعاس يصلي الصبح بمعنه لعي ما دام فعل كان لغا مشغولية فعل كلا لوسو قدرية أو فعل كاسيو نوع عضيني سيدا باب اشتغال كالوي قانو والصبح أي ويصلي الصبح يصليها صبحي وتكني ولمسلم مسلم وحاوسقنا من حديث أبي موسى فأقام وأوغي نبي الفجر صلاة دي الصبح حين حلق انشق الفجر واغو دنبل مي اكل دلاعي والحال الناس ضدكنا لا يكاد ان كدواني يعرف بعضهم بعضا بركود بركه كلين وقرني حلقاس النبي الصلاه دي صبح تكدي الحافظ ابن حجر وحو انو تلماميا هلكن ما دام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقتيدي صلاه دي شنتها لغو فافاهيي مسائل لا xiriidha oo axaadiid kale ay noo tilmaantay ayaa waxa weeye uu tilmaamaya idan wixii ziyaada baynu ka qaadanaynaa masaa'isha muhiimkeeda xagga waqtigana waa soo qaadanay
abi barzat al-aslami wuxuu inoo tilmaamay masaladii hadda aynu ka hadlaynay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam salaada casar xilligeedu inuu dhammaanayo intaanay cawlaan laakiin waqtiga nabigu uu tukanayay inay ahayd waqtiga ka horeeya masalada waa inoo tilmaamay wuxuu kaloo inoo tilmaamay xadiidku salaada cishe marka waqtigeeda la sheegay faa'iido muhima oo la xidhiidha salaada cishe oo waxa loo yaqaano istidraad waxa loo yaqaano يعني مسألة كهد ليسي حلقة صلوات كهد ليسي وحياب الله حديدة إن وحوية ليسوا فائدية طبعا نوحو ينور حقلية مسألة لحديدة صلاة عشاء نبي عليه الصلاة والسلام إنه ديدي صلاة عشاء انت أن لا تكن إلا سيحضر وهي وحلقة يابا إن صلاة عشاء يكون دافته أو صلاة صباحات توسته إذن قبل العشاء الله ما سيحضر انت أن لا تكن ومكروهي وحكى له الديني بعد العشاء هنا إلا عوية ولا ديني ولا حديث بعدها شاكد الله شاكي سنة وحلم إذا هدي تيفية لوسو تشيدا يو مسلسلات كي وحلم إذا أما أخبارت لوسو تشيدا يساعد الضمبة يدنا والله وحل الديدية ووحي بناناوي أما وحي محرم كاها يسوي حل والبوا ممنوع وما بنانا لكن waxa la sheegaya waa wixii mubaax ah waa sheekadii la sheekaysanayay ama wixii la daawanayay banaana in lagu soo jeeda waa makruuh nabigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam waxa loo diidayna waxa yahay waxa laga yaabaa salaadii cisha in laga caajiso loo kici waayo ama qofkii salaatul leyl ka tukanay inuu ka caajiso salaatul leyl inuu u kaco ama waqti fiican inuu kaco sidaas loo diiday laakiin waxa laga soo reebaya wixii diin hadii loo soo jeedayo ama wixii dana ee ummadu ay u baahan tahay hadii loo soo jeedayo waa mid bannaan weyn oo nabiga iyo abi bakr iyo umar intay isu yimaadaan ayay ummadda danahooda u soo caweynayeen oo u soo jeedayeen cilmiga in loo soo jeedo salafku waa sameeyeen oo bal waxay gaarayeen habeenka badankiisaba cilmi inay ugu soo jeedaan laakiin cilmiga ay ugu soo jeedayaan umay diideyn salaatul leylna inay u kacaan salaada subaxna jamceeda inay ilaaliyaan umay diideyn marka wixii diina ama cibaada ama wanaag la sameeynaya lagu soo jeedayo iyaduna waa mid bannaan weey iyaduna waxa weeye waa mid bannaan laakiin waa inaanay saameyn salaadii subax oo hadii xaalku yahay habeen oo dhan wanaag baan ku soo jeedaya ama cibaado ama cilmi ama kutub baan xifdinaya fiidkii oo 12 habeenimo ama kowda la seexanayo kadibna salaadii subax ay ka tagayso ay kugu adkaanayso inaad u kacdo tan noocaas waxay noqonaysaa xaalkaaga hadaad ogaato inaanay ku banaanaan haday salaada subax waxa weeye ay kaaga tagayso makruuhi waa ku yaala hadaanay tahriim noqon hadaanay noqon macnaha noocaas ayuu noo tilmaamay sideedabana dadka waayeelka in yar baa ku filan laakiin dadka dhalinyarada ah baan hore u kicin oo waqti fiican waxa weeye u baahan marka iyaga badanaaba cilmiga daneeya iyaga masaladaasi si khusaysa wala laga yaaba masaa'ish inuu macaansanayo habeenkii ku soo caweynay laakiin markuu 12 ka seexdo 3 saacadood ay waxa dhaama 4 saacadood inaanay ku filnay oo hadii mobilka uu buuxsado ama waxa weeye cid waliba ay toosinaysa aanu kacay marka la toosiye uu ilaahdaba indhaha duu isku qabtaba uu hore ka sii galay uu sii saaxay marka tan noocaasina waa muhiim khaasatan lishabab al-hafiz al-bukhari ayaa iyago socdaalaba maalmaha kamida nin ardaydiisi kamida bay meel wada seexdeen dadna habeenkii markii bartamihii la gaaray buu bukhari toos cilmigii iyo salaatul leylkii iyo cibaadooyinkii ku mashquul dadna xilli dambe ayaa ardaygii toos dadna waxa uu sheekh maxaad ii toosin way dhacda yani aan kula wadaaga wanaaga aad wada maxaad ii toosin way wuxuu leeyahay anta ila an-nawmi ahwad adigu waxaan ahay hurdada uga baahi badanta waayo jirkaaga u baahan waa fiqiga culimadeenu ay lahaayeen hada dad baa waxay ku takhasusaan cilmu nafsiga waxa la yiraahdo oo ka hadla baahiyaha dadka ka hadla waxyaabaha ay sheegaan waxa kamid ah qofku xilligu jooga hadba wuxuu u baahan yahay haduu daada yahay saacada inta leeg buu u baahan yahay bukhari baa ugu horeeyay
وحاول أنت أحوج إلى النوم يعني أنا أقول كاوينا هيو إن يربا يقفلنا لبا صدح ساعات با يقفلنا لكن هذا ساعات بدن بدو باهنتahay waxyaabo badan oo hadda la boonbooniyo oo PhD lagu qaato cilmiyo waaweyn lagu sheegay waa waxa weeye salafkeena iyo culimadeena laga hayo oo tabiicada bini aadamku ay keensanaysa cid Ilaahay fahansiiyay sida Bukhari oo kale cid Ilaahay u fahansiiyay masalada xadiidku waa inoo tilmaam وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسا masalada dambana waxay tilmaamaysaa nabigu salaada subax wuxuu ka baxay xilliga uu garanayo qofku cidda la tukanaysay ku xigta jaliisahu fi salaat qofka midig iyo bidix ka xiga markuu salaamu naqsanayo uu leeyahay waa hebel waa xilligaas inagu maalintii iyo habeenkii xilligeena waa isku mid weey lambada inoo shidan laakiin xilliga iftiin lama haysan iftiinka dabiiciga cadceeda ah ama waagu inuu dilaaco iftiinkaas waxa weeye cuska shawaah masjidkuna leeyr badan ama iftiin badan ma lahayn sida awgeed ayaa lagu calaamadiyay xilliga salaada subax laga baxay qofku inuu ninka ku xigay ku dhinac tukanayo uu kala soocayo waa hebel iyo waa hebel uu kala soocayo masaladaasna ahadiith ku cad bayno iman doonta insha Allah ta'ala oo xukunkeedanu kaga hadlay xadiidka Jaabir ibn Abdullah wuxuu inoo sheegay salaada Isha xilligeedii waa la inoo soo faahfaahiyay ku noqosho ma laha laakiin xadiidku wuxuu inoo tilmaamay oogashada la oogayo ama la tukanayo salaada waxa weeye Isha inay ku fiican tahay hadba sida jamcu uu yahay yaani inta istaqaana isku jamca ah ee meel ku wada tukata ama masjidka caadadiisu hadii uu yahay laba saf salaada Isha imaamku haduu caadaystay laba saf inay la tukato ama uu yaqaanaba inta jamca imanaysa xaafada la degan qofku uu yaqaano marka jamcu isu yimaado salaadii in la dadajiya inay wanaagsantahay sida fadliga badan hadii jamci uu kala maqan yahayna jamca in la badsado in waxa weeye la sugo waayo laba fadli ba meesha ku sugan salaada waqtigeeda bilowgeeda in la tukado awwalul waqti in la tukada fadli ba ku sugan jamcu inuu bataana fadli ba ku sugan labaduba maadaama ay fadli badan yihiin hadba kii la helayo ayaa la ilaalinaya labada hadaynu sii eegnana nabigu mid buu sii fadli badnaysiiyay way sii kala fadli badan yihiin awwalul waqti illa tukado iyo jamca in la badsado keeba sii fadli badan ya xadiidkan maxaynu ka fahmin nabigu alayhi salatu wasalaam salaada Isha laba xaalu kala haday isu yimaadaan waa dadajinay haday habsaamaanna waa dibdhigay labada keeba mudan in jamca la ilaaliyo inuu bato iyo waqti jamca saasaynu ka fahmin waayo wa fadilatun muta'alliqatun bidhat al-ibada wa qa'ida fiqhi الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بوقتها أو مكانها فضل الله حريرة عبادة اللفتي أي كم ذاك الله حريرة وحيابها كبحسن سيدا وقتك يباسك وحي الله بركة وحل إلاليي جمع أيال إلاليي جمع السيدة سمهمية والنبي عليه الصلاة والسلام وحوي جمع أدني وكلها حديث أبي أيوب أبي بن كعب وما كثر فهو أحب إلى الله وكلما زاد فهو أحب إلى الله وكي حديث يعني كلما جمعوا بتجمع إلهي أكتي سوى اللوغة شعيل بدنيا جمع كهوسية حلقف هذا يسديري جمع قفوة زيادة أبا فضل بدن إذا لو مسجد هذا كوسي ميهين كجمع بدن إن أدوي كاساكو فضل بدن حديث مسلمنا أبي موسى وسورنا يوحو تلمام النبي صلاة الصباح إنه أوجي أو تكدي حلقي واجو الضلاعي يعني أول الوقت يضدتك أنا يسكراني ومد ولبا ككلا أنا أقونين مسألة تلمام ينسين شاقني وحديث بين نص وصعد السعد إنه وفا فاهني وعن رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه قال وحول كنا وان واهي نصلي كولت كذا المغرب صلاة المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم أيان لتكنين فينصرف وقدومي أحدنا متكايو والحال إنه يسقنا لا يبصر إن وأركيو
mawaaqica nablihi leebkiisu halka uu ku dhacayo ayuu arkay muttafaqun calayh salaada maghrib waqtigeeda waa la inoo soo sheegay halkan waxa lagu sii cadaynaya inaan la dib dhigin waqtigeeda la dadajiyo oo marka cadceedu ay sidaa u dhacdo in la tukado waayo haddii la tukado wuxuu saxaabigani inoo sheegay salaadii intay nabiga la tukadeen walibana ay ka noqdeen leebkooda ay ganeen ayay waxay ishoodu qabanaysay leebkoodu halkuu ku dhammaanayo maaha qofka la fadhiya ama la taagan maaha ama qofka u dhow maaha leebkii uu ganay halkuu ku dhacay ayaa u muuqanaysay halkaana waxaad ka fahmaysaa salaadii maghrib in laga baxay dhulku isagoo uu iftiin yahay weli uu iftiin yahay oo aan habeenkii aanu madoobaan weli si caadi aanu madoobaan masalada waa ka faa'iideysanayn masalada labaad ee laga faa'iideysanayo ta koowaad waa salaada xilligeeda in la dadajiyo markuu gabalku sidaa u dhaco masalada labaad salaada lafteeda in la gaabiyo waayo haddii lagu tukado laba jus habeen bay noqonaysa in la gaabiyo oo suurado gaagaaban lagu tukado si looga baxo iyadoo dhulku iftiin yahay sidaasaa salaada nabigu calayhi salaatu wasalaam ay ahay way dhacday xaalado aan badnayn nabigu suuratul acraaf iyo suurado lamida inuu ku tukaday laakiin may badnayn sida badani waxay ahayd suurado gaagaaban inuu nabigu ku tukanay calayhi salaatu wasalaam baabkaasina waa inoo iman doonaa salaada waxa lagu tukado وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وحيتي أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحو مقديي العتم ومقدي قوي يعني وحو دبدي قوي إلا أي مقدي كالنقطي أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحو دبدي ذات ليلة هبين بالعشاء صلاة عشاء حتى ذهب إلا أكتغي عامة الليل هبين كبدا كيسو إلا أتغي ثم خرج وصبح النبي فصلى وتكذب وقال وحاولي إنه لوقتها وحل جيدوي يعني وحل عشاء لولا أن أشق هدانا لمن على أمتي أمتين رواه مسلم حديث كان وحي نوت المامية صلاة عشاء إن لدبلغا إني فضل بلنتها وقتها وسوق لي هذا الكمتاغنا ومركع عصانك بابا شفق وحلو يقانو أيو دماني ayuu bilaabmay salaada cisha laakiin xadiidkan wuxuu inoo tilmaamayaa inay fadli badan tahay salaada cisha in la dib dhigo inay fadli badan tahay innahu la waqtuha waxa looga jeedaa ay waqtu fadilatiha ba looga jeedaa yani waqtigeeda ugu fadliga badani bilowga ma aha waa saacadan dambe in salaada cisha la tukado waayo waqtigu wuxuu u qaybsamaa waqtu fadila iyo waqtu ikhtiyaar iyo waqtu daruura وقت كراهية وقت عذر ولا بضبضية لكن صدح راسه أقول مهمة وقت فضيلة ووقت جيدا أقول فضل بدن صلوات كجودها وحا أقول فضل بدن أول الوقت وقت جيدا أقول الرية أي أقول فضل بدن الصلاة على وقتها الصلاة على أول وقتها بين صعد أي أقول فضل بدن لكن عشاها ولا قسوا الريبية وأفرت الصلاة ضد الكلام عشاها وقتيسا ugu fadliga badani waa in la dambaysiyo hadii dhibi aanu ka dhalanay lawla an ashqa ala ummati hadaran ummadayda dhibay waayo in la caweeyo oo cishihii la sugo oo sagaalada la tukada dad badan bay dhibaysaayoo seexanay subaxina shaqooyin ka lahay maadaama dhibi ay ku sugan tahay ayaa hadii dhibi ay ku sugnaato waxa weeye loo soo qadimay وأول الوقت قال له تكني لكن حدي أن نبي كسرنين وقت جدا أقول فضلك بدني وإلا تبدي قوي دبعتها حل جاني كسرنين إن وحوي مالك وضع شقيسة أما مال وضع شوكته أما إسكو جمع أو إسوق أو إسكو دانا هدي كوهشيان إن يدبلك تان عشاء ويفضل بدن تيتصا أفضل بدن تصور فضل بدن يعني فضلك سولي وباقي إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي وحكى له سيحو تشينيا حديث كي كلا يسقنا كيمي وحوية صحيحين كعبد الله بن عباس النبي يقول عليه الصلاة والسلام
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة هدي أمضي إذا أنا ندب لهاي وحان أمر كسر لها صلاة عشاء حلقا إني تكذان لكن أمضي ندبك ودي ذي نبكي هدي الله وين فضل قاسي ولي وباقي وي مسألة داس أي حديث كوين التلمام وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر كل هدو درناد فأبردوا قبوشية بالصلاة صلاة لقبوشنا يانا وصلاة دي كل ليل وصلاة الظهروي يدا يكل لاتا فأبردوا قبوشية بمعنى دبدغا أو أول الوقت دب أغدغا فإن شدة الحر محايا لي كليل كدرنان تيسو من فيح جهنم نفس الشديد أي كمتها ونفس الشدى جهنم أي نفس نيسو أما هو العيدة أي كمتها إلا بضبا والليل حديث كان يوحو التلمامية هذا وحي نكاهد لأني صلاة عشاء لا دبلغو حديث كان يوحو كاهد لي حلق حقاقا أما كليلة كلكو وحوي بدنيه صلاة الظهر إن لا دبلغو يعني وقت كذا لا دبلغي مايو لكن إسلا وقت كذا بقى قيبها الدنبل لوجو دبلغية فضل النوع سنة أما مسألة النوع سنة نبي أحاديث أبضان أيو إنه وجديه وحديث كان كم دي هاي حديث أبي ذر صحيحين ككويمي يا أحاديث بضان أو حوية كتمي صحيحين كيسرن تكويمي حكم كالنوع سنة وحكم علماء وإسلاقاته حلق كليلها إن وحوية صلاة الظهر لا دبدغو لكن واحد لا يسويديه محل لو دبدغيه سببت وما كل كان لوغا دبدغيا او خليغا كل كان لو تكنين لبا علا لغو علي اما لبا سببود با لغو سببي سبب والبا حكم با كدشاي او علماء ay isugu khilaafeen illa waxay tahay khushuuc la ilaalinay khushuuc ayaa la ilaalinay khushuucda hadii la ilaalinayana qofkii kaligii tukanayay iyo kii jamaca la tukanayay iyo kii waxa weeye masjid ka fog lugaynay iyo gabadhii aqalkeeda ku tukanaysay intuba waa isku mid weey waayo kul kan badan khushuucdii buu waxyeelay kulkuna dawma kala socona waa u simeeyay يعني صلاة تكشد لا تكنيه وهي خشوع معها قبل الصلاة وداخل الصلاة تكشد صلاة لا تكنيه أيا كل كم بدني أو وحيلي إذا سر الله خشوع وقت قبوها لا تكدو خشوع ذا وحيلي أنا وللجميع سما وقف والبتكني معناها ساكس وبحي حدي سببتها لغو سببية أما علة لغو علي سيدانا وحا قبا إن بدنا علماء كمدا علا لباد با لغو علي oo shaafiiciyadu ay ku cileeyeen waxay yiraahdeen waxa loo qaboojinaya si dadku jamaca ay u soo gaadhaan oo bacadka aanay ugu dhibaatoon taasina waa cilla labaad taana maxaa ka dhalanay inay ku kooban tahay jamaca la tukanay walibana jamacaasi inuu masjid yahay masjidkaasina walibana inuu fog yahay walibana waxa weeye gaari iyo dallad iyo wax cadcida ka celiina la haysan ama wax la harsado in la haysan waxyaabaha soo dhani markay isu yimaadaan ayaa la dibdhigaya laakiin waxyaabaha hadii la waayo oo ay fududahay jamaci dib la'aan in lagu gaaro lagu tukado waxa weeye la dibdhigi maayo bay shaafiiciyadu qabaan labada cillo macquula weey laba cillo oo macquula weeye labaduba وشافعيدنا حق معناه كاغن oo xilliga kulaylaha inta badan lugayska masjidka loo lugaynayo iyo bacadka kululay qofka ku dhacaya iyo waxu ka harsado aan wahaysan wama ila dalik waxyaabaha soo dhanba dadka dhibay laakiin gabadhii aqalka ku tukanaysay afarta ragcadood waxa laga yaabaa dhib badan inaanu ka soo gaarin marka labada qowlba waa xoog badan yihiin laakiin sida si xoog badan waxay tahay umada inaan cidhiiri la galin qowlka waasica la qaato qowlka waasica waa qowlkii waa qowlka horwi oo dadka oo dhan in loo jideeyo cidii u baahan inay u fadli badan tahay inay xilliga dib dhigato ayaa waxa weeye fadli badan wallahu ta'ala a'lam
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم يا inagu kuleyl halka gaarsiisan khaliijka lagu yaqaan badanaaba kul laakiin waxaan leenahay kuleyl waliba waa bihasabihi inaga lafteenu soo xilli kulul mali waqti kulul baynu leenahay yaanu gaarin bada meelaha kulul yaan la gaarin qoliyahan yurub jooga meelaha qabqabo inaga waxaan kuleyl inoo ahayn ba iyagana kuleyl u ah haday dhibsadaan oo dhib ku noqdo way qaboway la qabsadeen iyaguna halkaas ay soo galayeen marka qolo walba waa kulka iyaga waxa weeye kul u ah ay waxa weeye dhibsadaan ayna ka hadlamayno content degree inay gaadho sida khaliijka kale waayo